madaxweynaha maamulka Somaliland Cabdiraxmaan Cirro ayaa qasriga madaxtooyada maamulkaasi waxa uu ku qaabilay wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Yahuuda Gideon Saar iyo wafdi hogaaminayo oo maanta booqasho dhabargaabista ku yimid magaalada Hargeysa. madaxweynaha maamulka Somaliland ayaa wafdiga hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil Gideon Saar go'aanka geesinimada lahaa ee Israa'iil ay qaadatay taasoo Somaliland ku aqoonsatay. madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Cirro ayaa sheegay in aqoonsigan Israa'iil ay siisay Somaliland uu kaalin weyn ka qaadan doono xaqiijinta amniga iyo sidoo kale iskaashiga labada dawladood waa sidoo hadalka u dhigay. sidoo kale waxa uu sheegay in aqoonsigani uu keeni doono fursado shaqo kuwaas oo uu sheegay in ganacsi dhinacyo badan taabanaya uu dhexmari doono. isagoo intaas ku daray in Somaliland ay diyaar u tahay in si buuxda la shaqeyso Israa'iil. dhankiisa wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Yahuuda Gideon Saar oo asaguna hadlay ayaa waxa uu sheegay in Israa'iil ay aad ugu faraxsan tahay in aqoonsi ay buuxa ay siiso Somaliland. isagoo sheegay in ay aad ugu faraxsan yihiin in ay xiriir dhow la yeeshaan Somaliland taasoo uu sheegay in fursado aad u waaweyn ay ugu jirto labada dhinac. sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Yahuuda ayaa Cabdiraxmaan Cirro waxa uu ku wargeliyay casuumad rasmi ah oo kaga timid ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu kaasoo ku casuumay in Cabdiraxmaan Cirro uu tago magaalada Tel Aviv halkaas oo la filayo in ku soo wada saxiixdaan heshiiska Abraham Accord kaasoo qayb weyn ka ah in Israa'iil ay aqoonsato maamulka Somaliland.